kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa janalka aayaha ku soo dhawaada gacmo furan haddaad iminka nagu soo biirtay fadlan subscribe inoo saar oo ka mid noqo asxaabta mar walba la xiriirta janalkan adigoo kala socon kara macluumaad dheeri ah oo ku saabsan waxyaabaha ugu xiisaha badan ee caalamka ka dhaca haddii aad ka mid tahayna asxaabtii hore inoola joogay waad ku mahadsan tahay la joogistaada shirkadda caanka ah ee TikTok ayaa barteeda ka saartay ku dhawaad 7.3 milyan oo ciwaano ah oo ay ugu shakisan tahay in ay leeyihiin carruur da'doodu ay ka hooseyso 13 sano. TikTok ayaa sheegtay in ay ku qiyaastay ciwaanadaasi in ka yar 1% marka la barbar dhigo tirada guud ahaan ee isticmaasha bartooda. Carruurtu da'doodu ay tahay 13 sano iyo wixii ka weyn ayaa loo ogol yahay inay isticmaalaan barta TikTok iyadoo la sheegay in ay aad u jecel yihiin dhalinyarada. waxay sheegtay shirkaddani in ay rajaynayso faahfaahinta ku saabsan dadka da'yarta ah ee adeegsada in ay ka caawin doonto shirkadaha kale in ay hore u sii socdaan marka ay tahay daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka ku saabsan badbaadada isticmaalayaasha. warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in ka badan 61 milyan oo fiidiyow in laga saaray barta TikTok taa oo qiyaas ahaan ah 1% dhammaan fiidiyowyada la soo geliyay barta TikTok. 82% ka mid ah waxa laga saaray ka hor inta aan la eegin fiidiyoyadaasi halka ka hor 91% laga saaray inta isticmaalo kasta uusan la soo degin muuqaalkaas la soo geliyay ee shakiga muujiyay. ku dhawaadna 2 milyan oo xayeysiimo ah ayaa laga xiray akoonnada iyadoo loo aaneynayo in ay la xiriiraan arrimo siyaasadeed. TikTok ayaa sidoo kale sheegtay in ay soo saartay dhowr tallaabo oo lagu ilaalinayo dhalinyarada ku jirta bartooda oo ay ku jiraan xadidaadda isticmaalaha sida fariimaha gaarka ah loo leeyahay iyo kuwa tooska oo ay ula socdaan oo isticmaalayaashu da'doodu ay tahay 16 sano iyo wixii ka weyn ay adeegsan karaan. dadka ugu badan ee isticmaala ee dhalinyarada ah waxay bartaasi u adeegsadaan iyagoo markaas soo gelinaya muuqaalo xiiso leh qaarkood ayaa waxay soo geliyaan dhowr ilbiriqsi ku dhawaad 60 ilbiriqsi iyadoo markaana lagu soo kordhiyey muddo 3 daqiiqo ah warbixino soconaya in aad soo gelin kartid. muuqaalkaas waxa uu gaarayaa asxaabta iyo dadka gaarka ah ee daneynaya ee saaxiibka kula ah halka dadka qaar ee caalamka jooga haddii aad ka dhigtan in ay wada arki karaan muuqaalkaaga si aanan daah saarnaynin ay u daawan karaan. si aan u ilaalino carruurta yaryar warbixintan waxaan ku darnay tirada xisaabaadka laga saaray in uu ka mid yahay qof da'diisu ay ka yar tahay muddada uu sheeganayo ayuu yidhi Cormac Kennan oo ah madaxa shuruuc dejinta barta TikTok. si aan u sii wadno xaqiijinta hanaanka aan u ilaalinayno TikTok oo ah meel dadka 13 jirka iyo wixii ka weyn ay isticmaali karaan waxaan hiigsanaynaa in aan raadino hab tiknoolajiyad cusub ah oo aan dadkaasi aan ku baari karno da'dooda. abkan oo laga leeyahay Shiinaha ayaa dadka ugu badan ee isticmaala ay yihiin dhalinyaro waxay sii kordhaysaa walaaca laga qabo iyo saameynta uu ku yeelan karo dhalinyaradu da'doodu ay ka hooseyso 13 sano. xog uu soo gudbiyey wargeyska New York Times sanadkii la soo dhaafay ayaa lagu sheegay in 3 meelood meel ka mid ah dadka isticmaala Mareykanka ay da'doodu ay tahay 14 sano iyo wixii ka yar. waa mid ka mid ah caqabadaha ay wajahayso barta TikTok oo ay ka mid tahay shirkadaha kale ee baraha bulshada ay la xiriirto kuwa ay isticmaalaan dhalinyaro da'doodu ay aad u hooseyso waxaana xaqiijinta da'dooda isticmaalayaasha ay ku adkaanaysaa shirkadda TikTok iyadoo sidaasi uu qoray Chris Stockwell Walker oo ah qoraaga TikTok Bomb. muddo 10 sano ah waxaa suurtagal ahayd in la hubiyo da'da qof kasta iyadoo si fudud loo dhahayo waad ka weyn tahay da'daas balse hadda dhalashada oo been abuurka ah ayuu qof kasta sheeganayaa oo ciwaanka samaysanayo. TikTok ayaa waxay leedahay qaar ka mid ah teknoolajiyada ugu casrisan adduunka ee aragtida kombiyuutarada waxay u badan tahay in awood ay u leedahay in ay ku ogaato sida saxda ah ee adeegsadayaasha da'dooda ka hooseyso da'da balse isticmaalayaasha teknoolajiyada noocan ah waxay u baahan tahay in ogolaansho dheeriya ay ka helaan shirkadda TikTok iyo dadka ay baarayaan. go'aankani ayaa yimid kadib markii TikTok lagu dacweeyey in ay ururiso ayna isticmaasho xogta carruurta da'doodu aadka u yar tahay.
bishii January hay-ad ilaalisa xuquuqda gaarka ee teknolojiyada ayaa waxay ku amartay TikTok in uu xanibo macluumaadka dhalinyarada da'doodu ay aadka u yartahay kadib dhimashadii gabar 10 jir ahayd ay isku dayeysay in ay sameeyso xujo muuqaal ah oo ay kala socotay barta TikTok sida daraadeedna ay u dhimatay xujada iyada oo furayso kaliya ma ahan mid ka mid ah barnaamijyada ama teknolojiyada ugu waaweyn ee sida weyn loogu isticmaalo sidoo kalena soo kordhaya baraha bulshada balse waxay u badan tahay in uu yahay kan ugu fiirsashada badan ee caalamka laga daawado ubaro badan ayaa leh ma jiraan si cad oo loo ogaan karo da'da qof kasta ee isticmaalaya baraha bulshada waana dhibaatada ugu weyn ay wajahayso sharikadda TikTok ma jiraan waalidiin badan oo raba in ay xogtooda iyo baasaboorkooda iyo dhalashooyinkooda ay u dhiibaan shirkadaha waaweyn sida TikTok iyo shirkadaha kale ee qaaska loo leeyahay gaar ahaan haddii la hirgeliyo xaqiijinta da'da carruurta waxaa markaasi noqon doonta in akoonno fara badan laga xukumi doono dukumeentiyo iyo in kaararka ID-gooda ay soo sawiraan si markaa da'dooda loo xaqiijiyo walow ay adkaan doonto markaa in qof walba uu ku dhiirado in baasaboorkiisa ama ID-giisa uu u sawiro shirkad uunan garanaynin waxay ku samayn doonaan warbixinta inta ayaan ku soo koobayaa TikTok waa shirkad aad u weyn sidoo kalena waa run waxa isticmaala dhalinyaro oo aad u yaryar oo 13 sano ka yar intaan ku kulmi doono warbixinta xigta waxaan kaga tegayaa sida iyo nabadgelyo